aad ayuu mahadsan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye iyo golihiisa wasiirada golihiisa sharci dejinta baarlamaanka Galmudug iyo guud ahaan maamulka Galmudug sidoo kale dadweynaha reer Galmudug ayaa aad iyo aad u mahadsan soo dhaweyntii iyo qalbi furnaantii iyo marxabeyntii ay noo muujiyeen waa mid aad iyo aad noo taabatay annaga dhan sida dadka reer Galmudug gaar ahaan caasimada dadka degan aanay u soo kala harin oo ayaga oo dhameystiran ay noo soo dhaweeyeen qalbi furnaan noogu soo dhaweeyeen aad iyo aad ay u mahadsan yihiin shacabweynaha Dhuusamareeb iyo guud ahaan shacabweynaha Galmudug intaba sida madaxweynuhu sheegay Galmudug waa dowlad goboleed waxaana qaaday sida maamulada kale oo dhibaatooyinka qabatay dhinaceeda ka qabtaan laakiin dad firfircoon Soomaaliya dhaxdeedana taariikh dheer ku leh haddana u taagan wali u heelan waay dhulka Galmudug ay ka kooban tahay in badan xor ah in yarna shabaabka cadawga ku harsan wali waana u taagan yihiin maalin walba meesha oo dagaalka cadawga lagu hayo aanu ka dhamaanin uu ka taagan yahay uu ka nool yahay oo maalin walba la hor taagan yahay dadka ay ugu horeysaa Galmudug hormuud ka tahay waxaan ka shaqeyn doonaa u istaagi doonaa dalka sidii looga xoreyn lahaa cadawgaas muddada dheer meesha ku dahay dadka reer Galmudugna ay nabad u ahaan lahaayeen sida fariinteenu meel kasto meesha hore soo marnaa ay wahay caasimadda intaan joognay iyo ballanqaadkii doorashada ay wahaydna waa mid wili Soomaaliya heshiisa marka waxay ka bilaabataa meel walba dadka jooga inay heshiis yihiin koonfur galbeedaan fariintaas u gudbinay reer Galmudugna fariintaas oo kale u gudbinaynaa si aan cadawga uga adkaano si aan dawlad xoog leh oo Soomaaliyeed u helno annaga dadkeena waa inaan qalbiga isu xaarnaa qalbiga iskala jirnaa kadibna Soomaalida oo dhan ay qalbiga haddana isku furtaa oo la iskala jiraa sidaas ayaanan uga guulaysanaa cadawga marka fariinta aan la nimaday Galmudug fariin nabadeed fariin dib u heshiisiineed fariin walaaltinimo fariin amni oo cadawga in la iska kiciyaa dowladda aniga aan madaxweynaha ka ahay oo ay shacabka Soomaaliyeed ii doorteen fariinteeda koobaad iyo teeda labaad iyo hortabinteeda koobaad iyo hortabinteeda labaad iyo teeda saddexaad waa amniga iyo in amnigaas aan gaarno himilada ah wixii ay u baahan yahay wuxuu u baahan yahay Soomaaliya heshiis dunidana heshiis la awaay laana Soomaalida dhaxdeeda inay heshiis noqoto waaye dunidana waa u baahanahay waa aragnay kaalmadeeda ugu baahanahay in ayadana aan heshiis la noqono marka si Soomaaliya heshiis aan u helno waa in ayada ka bilawnaa dunida lama heshiin karno haddaan anaga dhaxdeena heshiin cadawga iskama kici karno haddaan anaga dhaxdeena heshiin meel kasto ay Soomaaliya joogto fariinta aan maanta magaalada Dhuusamareeb aan ka gudbinayo waxay tahay Soomaaliyay aan heshiino qalbiga aan ka heshiino heshiisidii waa la isku yimiday waa xabadka la saaray waa la heshiye ahay oo aan ku soo jirnay muddooyinkii hore dhan waa noo shaqeyn waayeen maanta meeshan u baahnaa waa qalbiga aan ka heshiino ilaahay idinkiis shacabka reer Galmudug fariinta aan la wadaagaynahay waa taas waanan dhageysanaynaa duruufahooda gaarka ah haddii ay tahay midda abaaraha haddii ay tahay midda amniga haddii ay tahay culeysyada maamulka saaran haysta inaan la qaadno la wadaagno tara ka siino wixii aan aan u heli karno garab istaagida maamulka aan la garab istaagno dadka reer Galmudugna guud ahaan aan garab istaagno dhammaantood marka fariintaas ayaan u nimiday waan la joognaa dadkeena waa wareysan doonaa waana la kulmi doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum